nidaamka iskuulada hadda jira aad ayaa loo dhaliilahaas oo isugu jira kuwa gar ah iyo kuwa laga badbadiyey. Haddaba waxaan doonayaa mawduucan inaan kugula wadaago dhowr dhaliilood oo sax ah oo nidaamka iskuulada hadda jira lagu dhaliilo iyo dhowr dhaliilood oo kale oo ayagana aad u moodo in laga badbadiyey ama aysan jirin. Marka koowaad, nidaamka iskuulada hadda jira waxaa lagu dhaliilaa inay yihiin qadiimi, aysanna doonayn inay isbedelaan. nidaamkii uu aabbaha wax ku soo bartay iyo kii awowga wax ku soo bartay iyo kii adigu wax ku baranaysa waa isku mid inta badan, isma bedelaan. halka adduunka waxyaabo badan iyo noloshu ay isbedesho. Iskuulka waxaa lagu dhaliilaa inuu rabo dadka dhan inuu isku si wax u baro. Dad Ilaahay siyaabo kala duwan u abuuray, kala caqli badan, kala dulqaad badan, wax walba ku kala duwan ayuu doonayaa inuu isku si wax u baro. Iskuulka waxaa lagu eedeeyaa inuusan dadka barin xirfadaha nolosha ama waxyaabaha aad u baahan tahay intaad adduunka ku nooshahay inaad noloshaada ku maarayso. Tusaale ahaan, qaabka lacagaha u shaqeeyaan, qaabka loo shaqaysto, tusaale ahaan sida wax loo kariyo, waxyaabo badan oo aasaasi nolosha u ah iskuulku ma baro ilmaha. Sidaas darteedna waxaa laga yaabaa qof 20 jir ah oo markuu uu iskuul ka soo baxo inuuba la mid noqdo qof hadda dhashay oo kale, uusan adduunka xirfadihii nolosha uusan waxba ka ogeyn. Iskuulada waxaa lagu eedeeyaa inay caburiyaan hal abuurka oo ay doonayaan nidaamkaas ay degsadeen manhajkaas in lagu socdo, ardaygu uu fekero waxyaabo cusub soo saaro, wax ka baxsan manhajkaas looma ogola. Inuu xataa ka fekero looma ogola, inuu su'aalo keeno looma ogola. Just farta taag, amar qaado, wax la mid ah. Iskuulka waxaa lagu eedeeyaa inay maadooyinka scientifiga ay xoogga saaraan, physics, chemistry iyo waxyaaba noocaasa iyo xisaab. Qof waxaa laga yaabaa qoraal noqon lahay ama farshaxanle noqon lahay oo aan u baahnayn xisaab ama chemistry ama wax la mid ah ama gabyaan noqon lahay iyo wixii la midka ah inuu iskuulka ku dhaco sababtoo ah xisaab ma yaqaan, physics ma yaqaan, chemistry ma yaqaan. waxaana laga yaabaa qofkan waxyaabaha uu noloshiisa ka dabacsan yahay ama uu jecel yahay ama uu u diyaarsan yahay inaysanba ka mid ahayn maadooyin scientifiga. Iskuulka waxaa lagu eedeeyaa in uu koriyo dhaqanka isdulaysiga muddo dheer. Weliba qof 20 sano la dulaysanayo, la xanaananayo oo inuu amar qaato laga sugayo, xataa suuliga hadduu aadayo inuu farta taago loo baahan yahay. Ardaygu markii uu iskuulka soo dhammeeyo wuxuu imaanayaa asagoo u diyaarsan inuu amar qaato iyo wax la mid ah. Iskuulku ma ixtiraamo kala duwanaanshaha dadka, garaadka, awoodda jireed, dulqaadka, caafimaadka maskaxda, waxyaabaha la midka ah. Iskuulku waxaas ma dareeyo, asagoo arday kasta wuxuu ka sugayaa inuu isku soo dhaqmo. Iskuulka waxaa lagu eedeeyaa in ardayga sharaftiisu ay ku xiran tahay darajada uu keeno. Darajaduna waxa ay ku xiran tahay imtixaanka inaad ku dhacdana waxyaabo badan ayaa keeni kara. Adigoo wixii yaqaana ayaa laga yaabaa cillado kale oo ku haysta dartood inaad imtixaanka ugu dhacdo. Kadibna noloshaada inta ka harta waxaa lagu qiimeynayaa inaad iskuulkaas ku soo dhacday ama imtixaanka ku dhacday wax la mid ah. Dhaliishu intaas kaliya kuma sinna xataa dadka wax baraya ilmaha dhankooda dhaliil ayaa ka jirta. Macallimiinta naftirkoodu sida ardada u kala duwanta ayay u kala duwan yihiin. Mid ayaa u samaysan inuu dad wax ka dhaadhiciyo, midna uma samaysana. Ayaga naftirkoodu way kala cilmi badan yihiin. Marar badan macallinka asagoo cilmi leh laga yaabo inuusan diyaarsanayn ardada iyo inay isfahmi waayaan macallinkii asagoo cilmigii leh. Marka dhaliilahaas iyo dhaliilo kale oo badan oo jira oona halkan ku sheegin waa dhaliilo jira oo ka jira dhanka waxbarashada nidaamiga ah iskuulada. Marka waxaa jira sidoo kale dhaliilo kale oo aad u moodo in laga badbadiyey oo aan loo baahnayn ama qaldan. Tusaale haddii aan soo qaadano, iskuul maba loo baahno oo kale. Aniga sida ay la tahay, iskuul waa loo baahan yahay. Waxba lagama barto. Waxaasoo dhan waa qalis. Waa wax la dareemi karo in iskuulku uu muhiim yahay. Laga soo bilaabo canugu marka uu yar yahay, qoraalka iyo akhriska iyo waxa la midka la barayo ilaa meelaha sare uu ka yimaado. Iskuulka waxa uu leeyahay faa'iidooyin aad u tiro badan oo la soo koobi karin. Marka lama dhigi karo iskuul looma baahno. hebelba waa taajir iskuulna ma dhigan ama waa ku dhacay iyo waxyaabaha la midka ah hebelkaas unbaa taqaanaa laakiin waxaa jira malaayiin aada aqoon aan iskuul dhigan sidaas darteedna ay noloshooda u qariban laakiin adigu ma ogid hebelka waa la yaqaanaa laakiin malaayiinta kale lama yaqaan adaa isbari kara haddii aad u baahato mawduuc kale ayaan uga hadli doonaa insha Allah inay adag tahay in wax la isbaro gaar ahaan dadka waaweyn haddii ay dadka waaweyn ay ku adag tahay in ay wax isbaraan maxaa u malaynaa carruur yar oo saqiira 6 jir 10 jir iyo wixii la mid ah sida wax isku bari karaa ma isbari karo marka dhaliishaasi dhaliil jirta ma ah iskuulku waa adoonsi ama iskuulku waa xabsi dhinacyada qaar marka aad ka eegto waa la dhihi karaa waa xabsi ama waa adoonsi laakiin dhinacyada qaar marka ka eegto iskuulku wuxuu ku barayaa discipline iyo adaabta iyo waxyaabaha la midka oo hadhowdii ku anfici doona noloshaada dadka horeba iskuul ma dhiga jirin marka iskuul maxaa uga baahannahay haddii aad rabto inaad sida dadka hore u noolaato waa inaad adigana dib u laabataa adduunka hadda casriga la joogo qofkan wax baran mugdi ayuu ku jiraa ee la dhihi karaa marka haddii aad rabto inaad sida dadka hore u noolaato waa inaad adduunyada hore tagto adduunyadan hadda aad joogto iyo adduunyada hore
isku mid ma ah. Dadka iskuulka soo dhigta waa shaqo la'aan, kuwii hore shaqo la'aana iyo waxyaabaha la midka ah. Iskuulka looma barto kaliya in shaqo lagu helo. Waa arrinta aan doonayo inaan xoogga saaro. Iskuulka looma dhigto oo kaliya in shaqo lagu helo, in lacag lagu helo. Wa ficlan waxyaabaha iskuulada lagu dhaliilo oo garta ah ayaaba waxa ay tahaba inay shaqaale soo saaraan aysan soo saarin dad fakara oo gooni u fakara oo hawshooda qabsada oo hal abuura. Inaad iskuul ka soo baxday ee aad shaqo helin daliil uma aha inuu iskuulkii xun yahay. Inaad iskuul ka soo baxday ee aad shaqo helin daliil uma aha in iskuulka uu macno la'aan yahay. Laakiin waxa ay daliil u noqon kartaa wax adiga kugu saabsan. Inaad iskuul ka soo baxdo ee aad shaqo helin daliil uma aha iskuulka inuu macno la'aan yahay. Maxaa yeelay wadamada adduunka inta badan dadka shaqeeya iyo dadka aan shaqayn waxa badan dadka shaqeeya. Inaad iskuul ka soo baxday ee aad shaqo helin waa calaamado kale, dhibaatooyin kale oo jira ayay calaamado u tahay ee calaamad uma aha in iskuulka oo macno darro ahay. Arjeenayna inuu hadalkaas macno sameeyo. Marka dhaliilaha qaarna waa kuwa sax oo jira, qaarna waa wax laga badbadiyay. Mawduuca xiga waxaan doonayaa insha Allah taala inaan uga hadlo ujeedooyinka iskuulka laga leeyahay oo aan ahayn waxbarashada. Iskuulku uma jiro loomana sameyn in wax lagu barto kaliya. Waa ficlan in wax lagu barto waa kamid ujeedooyinka iskuulka, laakiin waxaa jira ujeedooyin kale oo fara badan. Sax ha ahaadaan, qalad ha ahaadaan, laakiin iskuulka waxa xoogga loo saaro ma aha kaliya qofka inuu wax barto. Arrimo badan ayaa ka dambeeya. Waxaan doonayaa laakiin mawduuca xiga inaan uga hadlo insha Allah. Assalaamu calaykum.